ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo faahfaahin dheeraad ah ka bixisay ciidamadii la sheegay in lagu daabulay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho. ujeedka laga leeyahay ciidankaasi waxa xilligan loogu soo beegay xog iyo macluumaad dheeri oo aan idinkaga haynayaan arrimahaasi idiin soo gudbin doonaa. beesha caalamka war ka soo saartay shirka xalana iyo goorta uu dhacayo iyo weliba warkii ka soo baxay villa Soomaaliya halka ay iska leeyihiin ayaan idiin soo gudbin doonaa. kooxo hubeysan oo arrimo kale oo idinka qarsan ayaan idiin soo gudbin doonaa. qeybaha dambena waxaad ku maqli doontaan Xasan Daahir Awees oo weerar afka ah ku qaaday Farmaajo iyo Fahad Yaasiin kana digay qatar ku soo foole Soomaaliya. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa, markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan. ayna ku horeyne dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saartay ciidamada la sheegay in lagu daabulay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Saadaq Aadan Cali Doodisho oo ka hadlayay arrin saacadihii u dambeysay si weyn loo hadalhayay midaas oo la xiriirtay in garoonka magaalada Muqdisho ee aadan cadde la geeyay ciidamo horle. Saadaq Doodisho ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidamo horle oo lagu daabulay garoonka aadan cadde kadib markii taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed uu saldhigga garoonka hoosgeeyay taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir kaas oo markii horeba ahaa mid madax bannaan. waxaan xaqiijinaynaa in hoggaanka ciidanka booliiska Soomaaliyeed aysan wax ciidamo cusub ama dheeraad ah ku daabuli karin aadan cadde ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray bartiisa Twitter-ka. ciidamada booliiska Soomaaliyeed kuwa Amisom iyo kuwa kale markaasi amniga kala shaqeeya ayaa loo qoondiyay inay ka shaqeeyaan ayaa howlahooda shaqo ee maalinlaha qabanaya. hadalkan ayaa imaanaya xilli uu shalay musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur walaac uu ka muujiyay in taliska booliiska uu saldhigga garoonka ku wareejiyay gobolka Banaadir isagoo farta ku fiiqay in ciidamo horle lagu daabuli doono gaar ahaan haramcad oo ka tirsan booliiska dowladda federaalka ee Soomaaliya. taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa saldhigga garoonka diyaaradaha aadan cadde hoosgeeyay taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir kaas oo markii horeba ahaa mid madax bannaan. macadda ilaa iyo hadda sababta rasmiga ee ka dambeysa tallaabada uu qaaday taliyaha booliiska ee saldhigga garoonka lagu hoosgeeyay taliska qaybta guud, balse wararka qaar ayaa sheegaya in dana siyaasadeed laga leeyahay arrimahaasi. si kastaba arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii dambe dhaqdhaqaaq xooggan laga dareemayay xerada xalana uu ku yaala garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyadoo lagu wada in maalmaha soo socda uu ka furmi doono shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. dhinaca kalena beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saartay ku xaqiijisay in shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu ka dhacayo aagga la ilaaliyo ee gegida diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho. qoraalka ayaa lagu yiri saaxiibada caalamka waxay soo dhaweynayaan imaatinka ka qaybgalayaasha shir madaxeedka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hogaamiyaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kaas oo lagu qaban doono aagga la ilaaliyo ee gegida diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho. waxaana lagu dhawaaqay inuu bilaaban doono 22 bishan oo markaasi biri ku beegan. beesha caalamka ayaa lagu baaqay madaxda Soomaalida inay si dhaqso leh ay u shiraan ayna muujiyaan hogaamin iyagoo ka ambaqaadaya soo jeedintii guddiga farsamada ee Baydhabo ee 16 February 2020 si loo hirgeliyo hanaanka doorasho ee 17 September 2020 loona gudbo doorashooyin iyadoo aanu jirin dib u dhac. waxay sidoo kale dhiirigelisay la taliyaasha la yeelanayo saamilayda kale sida dhinacyada siyaasadda, ururada bulshada rayidka iyo sharci dejiyaasha muhiimka si loo dhageysto aragtidooda loona xaqiijiyo in geedi socodka doorashada uu markaasi helo taageero ballaaran. nooma muuqato wax kale oo lagu bedeli karo laguna hirgelin kara hanaanka doorashada 17 September iyadoo la raacayo jadwal si dhaqso leh u hirgala si loo qabto doorashooyin nabdoon loo wada dhan yahay xor xalaal oo markaasi lagu kalsoonaan karo. saaxiibada caalamka ma taageeri doonaan geedi socodka oo aan loo dhameyn ama mid barbar socod ah ama dadaalo horseedi kordhinta muddo xileedyadii hore ugu jiray ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka.
waxay sidoo kale ka codsadeen madaxda Soomaalida inay ka faa'iideystaan fursadan oo ay gaaraan xal siyaasadeed nabdoon oo horseed doorashooyinka ayna sameeyaan tanaasulaad laga maarmaanka u ah danta qaranka Soomaaliyeed iyo dadkiisaba. saaxiibada caalamka waxay sii wadayaan dadaaladooda ku aadan isku soo dhawaanshaha saamiilayda Soomaaliyeed, waxaana mar kale ku celinaynaa sida ay nooga go'an tahay inaan taageero hirgelin geedi socodka doorashooyinka markaasi la isku afgarto faahfaahintiisa ayaa lagu yiri qoraalkan ayaa waxaa si wada jira u soo saaray howlgalada midowga Afrika ee Soomaaliya, Amisom, Belgium, Canada, Denmark, Djibouti, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, ururka jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Qatar, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkey, Uganda, boqortooyada midowda ee Britain, dowladaha Mareykanka iyo waliba qaramada midoobay. qaybaha hore wararka Soomaalida ayaa daawanaysan halka nagala socotaan waa shabakada wararka maanta. Xasan Daahir Awees oo mar kale muuqaal ka soo dhex duubay xabsi guri uu ku jira ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha waqtigu ka dhacay Farmaajo iyo taliyaha sirdoonka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Farmaajo oo muddo xileedkiisa dastuuriga uu dhamaaday 8 February ee sanadkan 2021 ayuu si gaar ah uga digay inuu markaasi isku dayo inuu dalka ka qabto doorashooyin hal dhinac iyo inuu xoog ku xukumo wadanka. sida laga soo xigtay Awees oo muuqaalka uu iska soo duubay ku baahiyay Facebook, Farmaajo waa inuu ku waana qaato qaabkii xukunka looga riday Maxamed Siyaad Bare iyo taariikhdii ka dambeysay halgankaasi. warniyaho waxaa kula talinaya kiiskan ha ku ceeboobin, sharciyad waa ka dhamaatay, waxa kale ku diyaar ma lahan haddaad damacdo inaad xoogtid dadkan waa dadka dhagaha Farmaajo laba meel ayaa ku tusaya. mid waxa weeye dadka hadda ka soo horjeeda waa dadkii Maxamed Siyaad Bare markii awoodda heysay oo xukunka adeegsay, waa nimankii meesha ka saaray, waa kuwa hawiye daaraad oo aad ka dhalatay. meeshan ha ku ceeboobin ummadda balaayaha u soo jeedin, si quman ku joog ama si quman uga bax, dalkan halis ayuu galayaa haddii fidna ay dhacdo ayuu si furan uga dhawaajiyay. xilli uu Fahad Yaasiin ku sifeeyay maskaxda ka dambaysa qorshahaasi uu adeegsiga ciidamada inuu ku beegsado siyaasiyiinta ka soo horjeeda iyo inuu ku goobo madamiciisa siyaasadeed ee shakhsiga ayuu si gaar ah uga digay Farmaajo. mid kale waa ku sheegi lahaa wiilkan ha iga loogin, Fahad waxbuu iga fadhiyaa, waxaan sheegayaa Fahad Axmed Saleymaan Dafle kamana ciidanka badna kamana tol badna ayuu intaasi ku daray Awees oo ku xiran xarunta Niise ee magaalada Muqdisho. hadalka Xasan Daahir Awees ayaa ku soo aadaya iyadoo heer kulka siyaasadeed kala shakiga iyo waliba isaaminaad la'aanta daneeyaasha ama saamiilayda ugu sareeya ayna ka dhalatay talaabooyinka halka dhinac ee madaxtooyada Soomaaliya. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday sida uu aragtay isbahaysiga looga dhawaaqay magaalada Muqdisho. wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuubakar Dube oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay isbahaysiga cusub ee Muqdisho looga dhawaaqay, kaas oo ku midoobeen mas'uuliyiinta uga miisaanka culus siyaasadda Soomaaliya. isbahaysigana loogu magac daray Golaha Badbaado Qaran waxaa ku bahoobay Jubbaland, Puntland, midowga musharaxiinta iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshe oo horkacaya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland. wasiir Dube ayaa isbahaysiga siyaasadeed ee ka socda magaalada Muqdisho gaar ahaan aasaaska madashan cusub Badbaado Qaran waxa uu ku tilmaamay kuwa doorasho diid oo maanta aan dalkeena looga baahnayn sida uu hadalka u dhigay. waxaan ajenda oo ah doorasho, laakiin waxaan aad uga xumahay iyadoo dalka doorasho aadaya in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan saameynta isbahaysiya doorasho la dirir. runta isbahaysiyadaasi waxay nagu celinayaan wada qaldan oo dib u dhac ayuu yiri wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cismaan Dube. Golaha Badbaado Qaran ayaa hogaankooda sare u doortay 4 xubnood oo kala ah madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, Jubbaland iyo Puntland iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshe Cabdilaahi. sidoo kalena Dube ayaa nasiib daro ku tilmaamay in isbahaysigan cusub ay ka soo dhex muuqdaan madaxweynayaashii hore dalka, kuwaas oo uu sheegay inay habooneed inay ilaashadaan xarumaha ay gaareen ama xurmada ay gaareen sida uu hadalka u dhigay. horta annaga dalkan inuu badbaadsan yahay ayaan u aragnaa, sababtoo ah markii isbahaysigani Badbaado Qaran ay dadka maqleen aad ay u naxeen, waxaana soo xusuusteen kuwii hore ee rajadooda god dheer ku riday
haddana xurmo iyo karaamo badan ay leeyihiin mas-uuliyiin la yaab leh marka ma rabna in madaxda aan ku dhex aragno isbahaysiyo doorasho diid ah, waa inay meel fariisaan oo laga barakaysto, ayuu yiri Cismaan Dube. dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya waxa uu sheegayaa in kooxo hubeysan ay maanta halkaasi ka geysteen dil qorsheysan. faahfaahin kala duwan ayaa waxaa laga helayaa fal toogasho oo ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho. ila dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in askari ka tirsan ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa qaada canshuuraha ee loo yaqaan milishiibiyada lagu dilay qaybo ka mid ah degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir. wararka ayaa sheegaya in dilku ay fuliyeen rag ku hubeysan bastoolado uu ka dhacay suuqa markaasi Boocle oo ku yaala degmadaasi. sidoo kalena wararka ayaa intaasi ku daraya in raggii ka dambeeyay dhacdadaasi ay goobta isaga baxsadeen kadib toogashada. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale gaaray goobta kuwaas oo daqiiqada kadib meydka ka soo qaaday halkaasi kadibna sameeyay baaritaano kooban. ma jira ilaa iyo hadda wax hadal oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda oo ku aadan dhacdadaasi. si kastaba dilkan ayaa ka qayb qaadanaya falal ammaan dari oo maalmihii u dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo isugu jira dilal iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho. ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho kadib safar uu maalmihii ku joogay wadanka Turkiga. Laftagareen iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde si weyn ugu soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha dowladda gaar ahaan odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ka qayb galaya shirka wada tashiga ee u dhaxeeya dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaas oo uu cilaamiyay madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. sidoo kale madaxweyne Laftagareen ayaa ka qayb noqon doona dadaalada iyo kulamada siyaasadeed ee ka socda gudaha caasimada loogana arinsanaya xaaladda dalka. si kastaba shirka beri ka furmaya teendhada Afasyooni waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Soomaaliya ayaa haatan wajahaysa xaalad adag oo kala guur, waxaana weli ismariwaa uu ka taagan yahay hanaanka loo wajahayo doorashooyinka 2021.